xabsiga Wemswood Scrubs waxa uu leeyahay taariikh xun waana meel ay maxaabiistu aad isugu layso. 2 maalmood ka hor waxaa lagu dilay Khadar Saalax oo 25 jir ahaa. Hooyadii Aamina Ducaale 2 habeen ka hor ayaa loo soo sheegay geeridiisa. xaqiiqdii waxay aad uga murugaysan tahay inuu ka baxay iyo sidoo kale inaga inuu naga baxay. waxay dareemaysaa in meel amni ah uu joogo oo ah xabsiga. Khadar Saalax dhawaan ayuu guursaday. Waxa uuna ka dhintay wiil yar oo sanad jira. Waxa uu 9 bilood ku xidhnaa xabsiga Wemsworth. 2 habeen ka hor ayaa qoyskiisa lagu wargeliyay in midi lagu dhuftay 7 jeer. waxaan la hadalnay 4 maalmood ka hor intaan la dilin. dhib ayuu dareemayay, noloshiisa ayuu u baqayay. Dilka loo geystay Khadar waxa uu dhiilo ku abuuray dadka xabsiga ku soo booqanaya ehelkooda. aad ayaan uga naxsannahay waxa dhici doona hadda kadib. qof walba oo maanta xabsiga soo booqanaya wuu ka naxsan yahay. waa arrin cabsi leh. waan u naxsanahay qoyska marxuumka sababtoo ah qofkii aad jeclayd ayaa lagaa dilay. baaritaan la sameeyey 2 sano ka hor ayaa xabsigan oo maxaabiis Soomaaliya ku jirto lagu sheegay inuu yahay mid khatar ah. qiyaastii bil walba waxaa ka dhaca 40 ilaa 50 gacan ka hadal. 25 falalkani waa kuwa la xidhiidha iskooxaysiga dhallinyarada burcadda ah. waxa kale oo la sheegay in maxaabiista maalintii 1 saac oo keliya laga soo daayo qolalka ay ku xidhan yihiin. wasaaradda cadaaladda ayaa sheegtay in kormeer kadib wax laga beddelay maamulka xabsiga si loo dhimo gacanka hadalka maxaabiista. hase yeeshee qoyskii Khadar Saalax waxay ka cabsi qabaan in mustaqbalka dad kale lagu dilo xabsigan haddii aan ammaanka maxaabiista wax laga beddelin.